kusoo dhawaada Kacab Media haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar like share comment soo dhawaada asxaabta suuqyada dalka Lubnaan waxa ka bilowday in dadka si caadi ah u iibsadaan hilibka dameeraha toddobaadkan dalka Lubnaan waxa si weyn looga hadalhayaa maqaal uu qoray qoraaga weyn ee Maxamed Al-Ayubi kaasoo ku daabacay wargeys ka soo baxa dalkaasi kaasoo ciwaan uu kaga dhigay dameeraha howlgabka ah ee Turkiga ayaa waxa ay saaran yihiin miisaska dalka Lubnaan. Maqaalkan ayaa wuxuu ku sheegay in hilibka dameeraha lagu kala iibsado suuqyada dalka Lubnaan iyagoo muuqaal ahaan u eg hilibka lo'da. Kiilidii hilibka dameeraha ee dalka Lubnaan hadda waxay maraysaa 40,000 oo lacagta liiraha dalkaasi ee Lubnaan halka hilibka lo'dana uu yahay 100,000 oo lacagta liiraha ee dalkaasi. hadalhayn xoog badan ayaa ka dhashay arintan iyadoo dadka si weyn ay ula yaaban yihiin isla markaana arintan ka soo cusboonaatay dalkaasi Lubnaan magaalada Tripoli la yiraahdo oo ku taala xuduudda dalka Lubnaan ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee lagu iibiyo hilibka dameeraha dalkaasi mid ka mid ah cuqaasha degan magaaladaas ayaa waxa uu sheegay in dameeraha howlgabka ee ku sugan dalka Turkiga la geeyo dalka Lubnaan si miiska loo saaro isla markaana halkaas loogu qalo iyadoo la sii marsiinayo magaaladan oo xudun weyn u noqotay in ka ganacsiga dameeraha iyo in suuqyada dalkaasi la geeyo